السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan dhex luganayaa area xaafada waan idin salaamay asxaabtayda youtube. maanta waxaan idinla wadaagayaa waxa weeye waxaan maanta idinla wadaagayaa iminka dadka qaar baa waxay soo weydiiyaan waxyaabo qaar bay soo weydiiyaan commentiga weliba tiktok ku badan. iminka matalan oo kala tusaale ahaan iminka wadada gurigan iyo seeskan iyo gurigan maxaa u dhexeeya 18 mitir. dadka qaar baa waxay ku odhanayaan 20 centimeter waa inay u dhexeeyaan wadooyinka aag seeskan birtu ka taagan tahay iyo gurigan rukunka dukaanka maxaa u dhexeeya waa 15. meel kasta cabirkeedu waa sidaa waayo majority dadku inta badan waa waxyaabaha ay soo weydiiyaan ba kamid ah ay yiraahdaan commentiyada inuu soo qoraan iyo wali Facebook TikTok marka dhul iibiyo soo dhigno waxa ka oranayaan marka taado blogku halkaas ka bilaamaya cabir ahaan iyo halkaas ka bilaamaya marka aad tiraahdo ayaa waxay ku oranayaan cabirka inta u dhaxaysa yani adduunyada sida ma aha for example saasay ku oranayaan bogti marka waxaynu sameynaynaa cabirka hadi jeer 15 centimeter. السلام عليكم. سمو عليدين الحمد لله. waa 15 kaas baa u dhaxay gurigan ilaa guriga 15 kaas baa u dhaxay wada kasta oo guri dhex marta waa saas cabirku waa saas. dadka qaar baa waxay marka for example marka tusaalo baan imika inta guriga ka soo baa gurigan ku sii socdo si qada tagayay bacdeen deedana waxaan ku fikiray waniyo commentiga lagu soo qorayo ee lagu oranayo warniyo cabirka dhulka wadada waa 8 qaar dadka qaar baa koray wadada bartanka labada guri u dhaxaysa waa 15 qaar baa horta tay isku wada jiraan. hadba qorshaha waxa ku xiranta qorshayaasha hore iminka qorshihii hore Hargeysa ee bilar raflo markuu maayarka ahaa waxa weeye qorshayaashiisii bloodkiisa wuxuu ahaa 12 iminka calaamadoo kale halka iminka fooqa inay maxamed iid ka dhistay hoostiisa oo kale ama halka buurta Sengal la yiraahdo area soo dhaw qorshaha soo kale weey marka guri kasta Hargeysa waa sida guriga rukukiisa iyo gidaarka inta u dhaxaysa waa 15 mitir. marka dadka qaar yaanay commentiyada iska saxna baan leeyahay for example waxba dhibintaasi maaha laakiinse muhiimadu waxa weeye inaan asxaabtayda inaan qancino oo aan ku qancino muhiimadu waxa ay tahay inta yani inta dhulka u dhaxaysa cabir ahaan inaan ku qancino taas waa inoo muhiim. marka insha Allah khair baan dirjiinaya barsiina YouTube-na waxaan idinka codsanayaa subscribe kiimka 5000 wax yar baynu jirnaa 5000 subscribe wax yar baa inooga dhiman wax badan inoogama dhina marka intaana aynu gaarsiino iyada inka badan buu idinka rajeynaya insha Allah bismillaah kariim hadii ilaahayno waayo kala wax idinka waa idin soo gudbinaa waxyaabo muhiim ama aad interest u tihiin ananda shaqadeedii camalkeygii baan noqotay marka inaan ugu dhiirigelisaan waxaan idinku mahad celinaynaa idinkana annagana inaan shaqo wacan suuq qabano oo waxa jeceshinba soo gelino waad naga sugaysaa taana annaga inoo taala shaqadeedii tahay waad nooga fadhidaan haddaad Facebook iga daawanayso sidoo kale haddaad iga daawanayso TikTok teenan inkastoo TikTok aanan muuqaalkan soo dhigayn laakiin haddana hadday igu qabato lacag la igu qabato day igu qaata insha Allah wanayna waxa weeye day igu qaata oo TikTok tan qaybteena kale waxa weeye qayb baa jirta aan furniture-ka ugu talagalay oo aan ugu talagalay baa jirta مولد بوح مid waa soo waxay saaxiibkay marka waxa weeye mobilkan ku duubayay kamarada maaha mobilkan ku duubayay marka qayb kale waxaan jirtaa in ugu tala galnay
furniture-ka oo ah dilaal net la yidhaahdo qaybtaana aynu camirno saa doona iyadaa baan muuqaalka soo gelin insha allah wixii faaliya tusaalaha 2427 baad igala soo xidhiidhaysaan insha allah bismillahi kariim dad guryo gogolan doonaysaan dad guryo maran doonaysaan guri walba waa saa iminka guryahan qaar guri kasta waa saa cabirkiisu marka insha allah saasaynu isku ognahay bismillahi kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh